deegaanku wuxuu u baahan yahay barasho weyn u baahan yahay waana aad u leeyahay oo deegaanku aad u daneeyaa taas idayri karo arrintaas kala waxaa jirta isbitaalku wax idin shaqeeyo baahidiina buuxi kara maya isbitaal uun mugtay meesha waa meel iska dadkiiya waa baadi u badan iyadoo ambadii ka socdo amba xanuun ku degan yahay hadii waa isbitaal la yidhaa meel ugu dhow lalaad waa la yaqaan mugta marka isbitaalku waa dhiig joojin waa la tagaa niman dhalinyaraha joogo marka waa la tagaa laakiin ma aha sidii la rabo ma aha wax maxaad isugu dayi weyseen aad fadhiisataan ka hadasheen deegaankiini maadaama deegaan walba ay dadkiisu soo dhistaan adan maamul wax idinku iyo dad adan wax ka sugnina balse adinku isku tashatiin maxaa diida taas hadda laakiin waxa waaye waqtigaas ka jiro xaaladaha jira ma ahan in la ismaaragta istigdigo ama yaraata laakiin hadda deegaanku wuxuu aad daay waxay maaragta soo kordho noocaas oo waxqabasho amba isbitaal amba wadan kaleeto waxbarashada horta haddii uu rag arrintaas wax ka qaban kara la arko waa lala shaqeeya waa loo baahan yahay laakiin loo shaqeynayaaba iska kala maqan degmada Runulgood ma biyaheera iyo ma ku filan tahay oo dadka deegaanka degma biyo laho dadka oo marti iyo dadka deegaanka ba hadii yimaadeen ilaano ma ka jirtaa mas biyo la'aan waa ka jirtaa oo idan iskeeda waxa walba waa loo baahan yahay laakiin waxa waaye hadda biyaha hadda waa jiraan biyaha laga meel bari laga soo jiido tuubooyin la soo jiidaa jiro oo laga isticmaalo wixii bas mugtay waxa waaye wixii uu shakhsi leeyahay waa kala fiican hadda deegaanka mabaax oo ka dhexeeya laakiin waa shakhsi leeyahay waa jira ceel ma uu yaho oo danguudu kuma yaal sooma waa ku yaala waa mid xaraara waa ceel xoolaad waa kay ceel xoolaad oo jira calaamihiisa oo talada calaamihiisa hadda damba sagaasaka ka caam oo la yaqaan midka waa si gaar ah loo leeyahay midka macnaha waa waxaa jirta dhalinyaro deegaanka soo jeeda oo joogta dalalkan horumarsan ee caalamka waxay doonayaan inay idin sameeyaan horumar sida biyo waxbarasho iyo wixii lamidaba oo degmadu u baahan tahay marka dabcan idinka layna ka rabaa inaad maaragta aad ka hadashiin oo hadalkiina loo gudbiyo ma la heli karaa dad idinkoo isku muuqufo oo maaragtana meel isugu tago aad wiilashaas doonayaan ma horumar idin gaarsiiyaan oo degmada idin wax badan oo idin qabtaan maxaad ka codsan lahaydeen oo ugu badan saddex lama dad nooga soo qabato biyaha waxbarashada isbitaalka saddexda ugu muhiimsan horta waxa waaye loo baahan yahay waa taas laakiin aniga mugtahay shakhsiyan ay waxna afaara kama baxdaa karo mugtaa laftirkeeda hadda telefoon leeyahay adigana soo wacday waxaana mugtahay caawa ma jiree wixii xawaalada way soo wacayna wax maaragta arrin toleedo iyo isla garasho oo mugtahay aad jiree bal markaygiisu waxay faahfaahin waa tuutaalayna hadday suuragal insha Allah waa mahadsantahay